السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما قيادة يوتيوب إن سلامي casharkan wuxuu ku saabsan yahay sideen iskaga tirnaa window Microsoft account markaan windowga ku galayno aan ka dhigana username caadi iyo password caadi marka aan ku tuso. marka sidaa ula gitid waxa u baahan tahay passwordkaaga ayaad gelinaysaa kadib marka passwordkaaga gelisid waxa lagaaga baahan yahay inaad dhahdid enter ayaa leedahay inaad geshid accountka ujeedaa inuu yahay aan ku gelino hotmail inaan ku gelino marka dadka qaar hotmailka ay aad u isticmaalaan mana fiicno username caadi inaad isticmaashid kadib start menu iyo right click ku leedahay control ban ayaad tegaysaa kadibna user ayaad gelaysaa mar kale haddana user ayaad sii gelaysaa user accountka kadib marka user accountka geshid waxaa ku dhufanaysaa manage another account ayaad ka dooranaysaa la soco markaas waxaan u baahannahay sidaan kan u tirno hotmailkan waxaan u baahannahay inaan mid cusub sameyno add new ayaan leenahay si aan u sameyno mid admin ah awood leh kadib waxaa leedahay add someone else to this pc ayaad ku dhufanaysaa si uu account cusub ugu sameeyo kadib marka hore wuxuu ku leeyahay telefoon ma u baahnin waxaa leedahay don't have this kadibna waxaa leedahay mar labaad ayaad ku dhufanaysaa add Microsoft Meredith kadib markaan username caadi ayaa samaysan kartaa waxaan ka dhiganaa bcc ayaan ka dhiganaa haddaad tidin passwordka waa gashan kartaa mar labaadna ku celi kartaa laakiin aan password ma u baahnin nagasta ayaan leeyahay sidaan u tijaabin oo kaliya laakiin u samaysan kartaa hadda usernamekii wuu noo diyaar laakiin awood ma u leh inuu hotmail ka tiro sababtoo ah ma ahan adminna maxaa lahaa inuu awood leeyahay sida rootko kale waa manage ayaa ku laabanaysaa mar kale accountka ayaad ku dhufanaysaa bcc markaan staanta ayaa saaran waxaa leedahay janjida account tab ayaa leedahay markaa ku dhufatid waxaa kusoo baxay sidaan admin ayaa leedahay waa awood ayuu leeyahay waxaanuu ka tiri karaa wax rabana ku shubi karaa laakiin standiga ma ahan waa dadka caadiga ayaa loogu talagalay ardayda iyo waxaas inay ka isticmaalaan kadib waxaan iska soo xir hadda ma u baahnin marka waxaan sameynaynaa inaan kii hotmailka ahay aan log out dhahno hotmailka accountkiisa ayaan ku jirna markaan waa inaan dhahnaa log out oo jeeda markaan dhahno ku dhufano waxaan leenahay sign out ayaa leenahay sign out markaan ka baxno waxaan u baahanaa mar labaad inaan dib usoo galno accountka bcc ma ahan hotmailka bcc ayaa sign in ayaa leedahay kadib wax wuxuu qaadanaya ilaa 10 minute kadibna start menu control ban right click ayaa leedahay control ban ayaa tegaysaa kadibna accountka sida caadiga hadda u galaysaa accountka ku laabanaysaa haddana markaan awood waxa u leenahay inaan ka tirno kadib waxaa leedahay manage another account ayaa leedahay kadib u jeedaa hotmailka ayaad ku dhufanaysaa inaad tidid inaad masaxdid markaa ku dhufatid waxaa kusoo baxay delete account haddii uu usernameka aad ku jirto hadduu admin ma tirmaayo la soco delete fail ayaa leedahay delete account ayaa leedahay markaa ka tirtid diyaar baag aan dhahno waxaan diyaarna u manageka haddaan ku laabano bcc oo kaliya ayaa noo diyaara hotmailki sidaas ayaa ugu tiri kartaa marka ardayda inta badan su-aalaha ay soo weydiin waxaan malaynaa insha allah bidna kariim inay fahmin se sababtoo log out ayaan ku sameynaa mar kale inaan ka baxo sidee u arkaan inuu hotmailki ka tirmay macnaa wax kasoo fiican tahay in la kala caddeeyo kadib markaan passwordka fiirsho ujeedaa waa bcc oo kaliya hotmailkii uu ka baxa meeshaas إن شاء الله بإذن كريم كفائديسي ونكسب وحي قوم تعالى ولاك أفائدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا.